Hello everyone, waa idin salaamay. Magacaygu waa Qalboos University. Waxaan isleeyaynaa weekly recap baan isleeyaynaa tiradii baxay iyo biaska natiijooyinka soo qoodana weekan. Inkastoo suuqa newsda waday oo haddana suuqa lagu daydaynayay. Halkan waa 31kii July waxay I think inay Isniinta ahayd Isniintii ahayd Axaddii. Dhegeyso waxay joogtaa meel premium ah, waxaa kaloo joogtaa meel fair value gaab ah, waxaa kaloo aan rajaynaa in laga wasal gareyn dhahnay oo sidii may dhicin oo suuqa fair value gaabkan sare u ka noqday. Suuqa fair value gaabkan waa laga wasal gareeyay, suuqa fair value gaabkan waa laga wasal gareeyay, soo taabtay meel premium ah la geeyay oo lasoo wasal gareeyay oo inagu waxaan nahay fair value gaabka baa la joogaa oo suuqa waa unique. kan kala la ixtiraamay haddii kan la ixtiraami waayo kan baa la ixtiraamaya. Haddii fair value gaabka la ixtiraami waayo OB-ga ma lagu ixtiraamaya. OB-ga in suuqa nagu sanadaan laga yaabo. Marka suuqa marka hore ka kacay fair value gaab daily bartan ka kacay, sell-side-kan buu qaaday, reason buu kacay, then in value imbalance-kaas haddana lagu soo salgariyay 2 cisho sala, then fair value gaabka ka kacay. Marka weekend biaskeenu sal buu ahaa inaan sal ka raadsaneed oo waan nidhaynay meel premium inuu jooga, meel premium oo ka sal gareynaa, meel discount inuu ka buy gareynaa, premium kana kamana sal gareynaa kamana buy gareynaa. Marka sidii ula jeedaan halkan waxaa dhaanay fair value gaabka markuu tago meel premium inuu joogo soo sal gareynaa, taasi ma dhicin. Fair value gaabkii kale ka sareeyay buu tagay suuqa waa laga sal gareeyay. Sidoo kale dad aragtaan eurada iyadana eurada markaan soo tiriyay inkastoo aan xog qorin inaan dheed kan gelin halkan waxaa dhahay waxay joogtaa meel discount ah, waxaa kaloo joogtaa meel fair value gaab daily ah. Weekly biaskeenu waa buy in la soo qaado buy sell-ka xagga sare saasaan dhahnay. kan waxa dhacay lacagtu waxay joogtay meel discount ah oo fair value gaaba. waxaa kaloo jirtay waxaa la qaaday weekly low baa la qaaday. weekly low markii la saa loo qaaday haddana previous day low baa shalay khamiistii lagu daray. maanta jimcaana waxaa meel discount ah meel premium ah la tegay. marka isagana biaskeenu wuxuu ahaa in meel discount ah la joogay, meel fair value gaab daily la joogay. halkan waxaa lasoo qaaday weekly OP baa lasoo qaaday, kan waa la noqday. iyadana weekly biaskeenu buy buu ahaa, 2 cisho buy aa baxay eurada. halka USD savage 4 trade wax noocaas ka baxeen. inagu wax raadsanaa week dhan 2 trade ama 3 trade baa raadsanaa A plus. marka iyadana isla eegno isagana biaskii dhegas waan shalay tolo soo dirinay intuuna NFP ka hor iyadana kan buu ahaa. waxaan dhahnay waxaan doonay in loo soo qaadaan dhahnay sell-side-kan lagu tegin meel premium in loo tago dan ka soo sal gareyno sidii noo dhacday oo inagii okii NFP-ga inagii soo sal gareynay. marka waxaan isleeyaynaa tiradii baxay weekgaas isleeyaynaa iyo siday ku baxeen. inkastoo euro USD ay weekan bixisay hal trade qiimi shalay oo kaasna NFP-gi waayo dad badan buu ka saaray. USD savage I think in 4 trade bixisay mise 3 trade oo qurux badan. bal isla eegno tan lacagtan waa euro USD. dhegas way lama trade gariyay, dhegas way jeeda guud baa laga eegtaa. waa kan sida ula jeedaan trade-kii shalay tolo baxay waxaa la yidhaha NFP-ga waa kan. waxaan dhahnay sida ula jeedaan dhegas iyadana waxay ahayd tan dhegas wayna geyno iyadana waxaan doonay in sell-side-na loo soo qaado. waa kan in sell-side-kan loo soo qaado jeeda saxda la imaado. biaskina saas u ah markaan soo diriyay meelaan bay marisay sell-side buy side-kaas la soo qaaday oo la soo daatay. sidoo kale euro USD-dana waxa la sameeyay waxaa la qaaday sell-side lagu dhigto xagan la qaaday, sell-side lagu dhigto xagan yaala la qaaday. asin logan baa lagu daray 3 jeer lagu dhigtay lagu qaaday. 3 jeer lagu dhigtay lagu qaado ma la qaadi maayo. dadka qaar waxay sameeyeen dadna kama shift ka dhigteen dad baa beer program ka galay SL baa laga garaacay
kuwii xaggana I think 2 BBX baa loo jirsaday oo badan oo koonada ka gubtay sababtoo ah shirkadu sleepage badan bay dalacaan NFP waxaa la iska ilaaliyaa tradekii kala baxay khamiistiina isagana waa kan kayga xun garaalaada guys isagana tradekan baa baxay oo ah Euro USD idana waxa la sameeyey Celsius grid baa la qaaday ASIAN baa lagu daray 3 jeer lagu ritay la sameeyey shift baa dhacay fair value gap mid soo noqotay isaguna kana saas uu ku baxay oo yaabaas dhan buu sameeyey kana saas uu ku baxay Celsius markuu qaaday ASIAN lagu qaaday dana Celsius kan lagu ritay lagu qaaday shift ku dhacay adeegaatiin 3 jeer lagu ritay lagu qaaday markii lagu qaaday fair value gap kana ku soo noqotay birka boogaad ka qaadatay islaaga hagan dhigatay hagan swingin dabadiisa wadanka bibuxi asugu baxay isagana tradeka alayda amisti sidoo kale kana taqriiban waxa trade badan maahay sidoo kale kana waxa telesidii trade badan sugan maahay sidoo kale kana waxa waa isniintii tiro qurux badan maahayn sababtoo wuxuu sameeyey waxdii lagu dhitiyo ku mutiirsanay inkalkan OP inuu yaalay kan shiftkaaga dhacay refereega ku noqday sugana wada turiga ku siiyey laakiin nagu miinan gargarayn isniintii sababtoo isniintii lama tirgarayo lacagta kale weekend aad ku dhaawday USD CFH way inay think effort intrina bixisaan filaya horta kuwa intrigan oo waa kii shalay tolo baxay asalkeena xaggaas u yaalay bombi buha isaga xaggaas u ahaa sababtoo mina qaadan ayakani asal biga dhacay sababtoo ah waxay sameeyey elaan baan keenay mar before waxa NFP baa sii galay elaan baan keenay oo news waxaa matrikliyo iga saaray marka isaguna tradekan wuxuu ku baxay A+ baa tradekani wax lagu qaaday BCD high baa la qaaday fair value gap lagu tagay asana inga lagu sii qaaday waxaana buy side la qaaday shift baa ku dhacay fair value gap boom taas tradekaasina ku baxay isagana trade kale baxay isagana wuxuu ahaa isagana kan buu ahaa inkastoo uu kan aan dana qurux badnayn oo meel aan ku tiirsan laakiin kullu yeetin dad qaateen Celsius buy side kan baa lagu qaaday dana buy side kan shiftiga saabxay birka booga kaasimo qurux badnayn laakiin ka aad ka qurux badnaa kan buu ahaa oo wuxuu ku beegmay 6dii maqribnimo ku beegay BCD high baa lagu qaaday London high baa ku dhacay Sohanti baa ku dhacay waxa dhaco kale shift baa ku dhacay fair value gap kaasi ugu noqotay 1 2 3 trade qaadanay tradekan A+ waa isagana trade kale baxay trade kale baxayna wuxuu ahaa I think inuu kan buu ahaa waxa dhacay isagana halkan OP baa lagu tiirsaday xaggana London high baa lagu qaaday shift baa ku dhacay fair value gap kaasi ku noqotay way soo daadatay waxay xidhay London loogi bay qaaday taasoo ku xidhmay isagana tradekan A+ baa waxa lagu sii kala qaaday ASIAN baa lagu sii qaaday buy side stobantigaas dhacay ismiyaarkii baa dhacay waxyaabahaas oo dhan ma dhacay marka wuxuu dee waxaan trade ku baxeen baa ku sheegaya in trade saas ugu baxay I think inuu trade kala baxay baan filayaa oo Monday iyadana saddexaad trade baa saa ku baxay inko kana laba iyo kan saddex marka guys anigu hal beer baan trade gareeyaa oo Euro USD waxaan garanaa GPS ini waxaan kana waxa sameeyaa midna device-kan ku eegtaa midna waxaan ku intridan ku galaa mug iyo bulli oo iska falanqeeyo bulli niyo pressure-kaaga baahan mug USD CFH iyo Euro USD labadaas badan waxaan badan Euro USD lacagan ma qaad hadda Euro-du baxdo GBP ka daba baxdaa mug marka GBP markaste amba GBP qofku qaata ama Euro qaata
marka waxa wacnaan lahayd inaad kusoo koobto training plankaaga iyo waxyaabahaaga horta niyow training plan cid socon mayso iyo bilaabmantar la-aan wallahi been ii sheegi maayo midda kale qofku dee inuu training plankiisa raaco riski managementkiisa ku dhaqmo haddaan maalinta niyo dadka badanaa akoonada waxay u gabaan moog hal trade baa asal kaga dhacaya waxaan noqosin baan ka hadlaya guys kala laada dadka badanaa tradada waxa sababta asal uga dhacaan war trade baa asal kaaga dhacay way trade labaad usii qaadanaysaa maalinta 1% risk gare akoonkaaga wad yeeli weyday waad baqatay 0.5 risk gare war trade aad kalsoonaan ha qaadan niyo dee mantarka dooranaysaana ma aha dee inaad ku doorataan lacag buu samaysan waa new mindset ma kaa dhisaya wixii ma ku fahansiinaya si fiican runta ma kuu sheegaya waxyaabaha ku dooro akoon hal trade baad qaadanaysaa maalintii ood gubaysaa istaraatiijiyada ku qaadanaysaa haddana trade kalaas kasii gelgelaysaa waxaana shaqeymaya dhuba soo qoraysa iyo forex waa scalpio sidan iyo bilaawga waxaan way shaqeeyaan waynu ogaanay lacag baan ka sameynay waxaan way shaqeeyaan trade plan yeelo maalintii hal trade baan qaadanayaa dhe halkaa trade ku dhaqan inta kale de waxaan business kaa noqoto 10kaas kasoo kacaysa ama 9 no 5 kac 5 subaxnimo kac ilaa iska tuko suuqaana iskala 8 subaxnimo 9 kan London baa kuu furmaya labito ku xirmaynta tirira suud weyda New York falanqay London wuxuu sameeyay New York badanaa waxa la eegtaa xilliga New York London wuxuu sameeyay la eegtaa niyo qofka oo waxyaabaha ku kalifay inuu fashilka keeno waa isagoo jabiya training plankiisa qaar baan training journal lahayn qaar baan training plan lahayn suuqan markaas hawaad ma uga samayn kartaa oo su'aale training plan lahayn oo training journal lahayn oo risk management lahayn waxay yacdaadu wado maalin baad trailerska qaadanaysa accounts-ka baasanaysa waad gubaysaa hobala akoonka 3 iyo 4 waad gubaysaa runta wixii ma qorisi trend plan ma qoris aniga laftaydu dee wax qabtaan lay oo aan ku tusaba training plankayga waa kan mistake-igan qoraa waxyaabahan jebin karin baa jira bale news material garanayo hal lacag baan tirganaya I will take on the I will risk waxyaabahaas aan ku dhaqmaa publicity kale intriga ku dabaqanay waxyaabahaas danka way suuqa way iska laaba laakiin qaarkiin saaxiib waa hay'adda waxaan ciyaaraysan waxaan maaha game daniyo oo business oo kale weeye wax noloshada ku bedelayso markaan iyo mantar sax oo in dhisay raashada weekly recap-keenu weekani inkastoo news jiray insha Allah weekan been raadana hadaan eegno lacagaha dhigasho waxa dhici kara intaan isla eegno inta ka nimaadno horta waxa dhici kara dhigasho waxay joogtaa meel discount I think meel waxay joogtaa meel discount way joogtaa oo macquul inay ka baaykin ka soo salgareyno meel premium ay joogtaa afwan Tesla degno for hour-ka horta waa macquul in ay isniinta marka furmo oo big soo noqoto amba waxay samayn kartaa daily-ga waxa isniinta waxa la samaysan karaa isniinta candle ku xidhmi karaa ayaan filayaa inuu xagaa ku xidhmo sababta meel premium ay joogtiin dubarta ku xidhmo fair gap samayso salaasadana ka soo salgareyno bayaduna macquula oo inaynu salaasadana soo salgareyno macquula sababta hadda meel weli meel premium lama keenin meel discount la keeno in ka bay gareynaa meel premium ka salgareyna markaas waa macquul inay isniinta samaysmato inuu candle bartan ku xidhmo salaasina fair gap soo bixiyo soo daato calaamadana waa calaamad reverse la aragto calaamadani waa power of 3 baa la waa calaamad reverse waxa la sameynayaa isniintan baa loo celinayaa salaasina sidoo kale la geenayaa arbaciya qiimihii jimcana la soo salgareynayaa dadtaas dhicweedo reason waa macquul in taasina dhacdo inkinan 100% waxa rabaa in taas dhacdo hadii dhicweedo sokay baysadan baa la soo qaadaya suuq reason kasta uu bixi waayo oo ku sheegi karaa amba reason kasta uu bixi rabo baysadan baa loo socdaa sababtoo meel waxa la joogaa meel discount premium la joogaa laakiin imidiga qor waxaan kana laday san noqdaan waa calaamad faasila weeye
kanalkaas siintaasuu noqonaya halkaas ku xidhmaya salaasaduna xaggaas ku xidhmaya arbacada iyo khamiis jimcana lasoo salgarinaya marka taas iyadana waa macquul hadaynu 1 hourka u daadinana waa iyadana waa deal gaar ah oo wax macquul in fair value gapka lasoo bixiyo amba OP-ga in la tago lasoo salgarayo sidoo kale euro USD dana waa waxa ka socda waa inay soo qaato iyadana inay fair value gapka soo qaato sababtoo ah iyadana meel waxay joogtaa premium ay joogtaa fair value gapka soo qaado iyadana joogto iyadana meel waxay joogtaa iyadana meel discount ay joogtaa marka wax macquul ah in la taageerayo fair value gapka in la taageerayo lasoo buuxiyo OP-gan iyo fair value gapkan la geeyo fair value gapka ku jira premiumka amba salka la qaado lasoo salgareeyo intaas waa suuq weyn iyo maalin baa xukusanaya la dhiyal gare price-kan lagu sheegaya waa khibrad guys mentor sax raadsadeen ilaahay suuqan mantalaan qaarkiin baa ku barteen iyo 10 meelaas ka yaala dil weyd waxaan ka salgaari laadin qofka wixiisa casharadiisa soo weydiiso ka soo xalaale nin ku raaxaysan yaw dad badan baa indiritin iyo dhammaantiinba